السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وفرحي حسين علي waxaa ku noolahay Nairobi maxaa dhihi jiray hadaan ka hadlo dhibaatada ay haysato maxaa dhihi jiray koodeedii hore waxaan ka imaaday qaxootiga Dadaab gaar ahaan Ifo waxaan imaaday halkan Nairobi oo hadda aan ku suganahay waxaan u imaaday inaan wax ka barto kadib markii aan isku day inaan wax ka barto maalmo kadib ama bilooyin kadib xogaa kadib adiga ii suurtagelisay inaan wax barashada bilowdo anoo sidaas ku jiro haddana waxaan isku day inaan shaqeysto shaqo raadiyay oo wax barashada waa ka niyadjabay shaqada saa u raadinay haddana sidoo kale ayadana waa shaqadii inta shaqada raadinay waxaa isbaranay wiil oo halkan ka shaqeysto oo halkan Nairobi joogo kadib markaa isbaranay xogaa way soconay waa wada sheekeysanay kadib markii ay isfahanay waxa ku ballanay inaan isguursano familka baray waa isguursanay wuxuu ahaa wiil aad iyo aad u fiican oo familka xiriirinayo nasiib darro waxay timid guurka dabadii kadib markii farxiyo ay aaday cisbitaal iyadoo faraxsan oo doonayso inay ogaato ubadka uurkeeda Allah ku beeray balse waxaa loo sheegay taabadelkeed oo ah inay qabto cudurka dilaaga ah ee HIV/AIDS dib waxaan aaday cisbitaalka inay isbaara ayaan rabay maadaama ah qof qabo maxaa dhigi cisbitaalka markaa tagay baaritaan kadib dhakhtarkii ayaa wuxuu ii sheegay arrin aan ka filanaynin runtii aad iyo aad ay ugu xumeed maalintaas wuxuuna igu dhahay waxaad qabtaa cudurka HIV/AIDS runtii waan aamini waayay dhakhtarkii ayaa saa u fiiriyay waa ku qoslay waxaan dhahay adiga maxaa warqad kale miyaad igu qabdaysaa ku dhahay yacni jawaab qofka u lahaa mayu dhahay soo farxi Xuseen Cali adiga ma tihid haa waay kadib waxaan isku day inaan dhakhtar kale aado si aan u soo ogaado arrintan inay beenta inay run tahay dhakhtarka kale ayaan tagay waa iska baaray wuxuu dhahay haa waa run aad ayaa u naxay haddana niyadeeda waxa ka dhaadhicitay inay been tahay haddana dhakhtar kale ayaa tagay dhakhtar oo wuxuu ahaa nin oo isnaqaano yacni aqoonsi ahaan ugu tagay si aan u aamino kadib dhakhtarkii markaan tagay wuxuu ii sheegay arrintan inay sax tahay runtii aad iyo aad ayaa u naxay hal saac camal ayaa meesha fadhiyay markuu arrinkaas ii sheegay dhakhtarka waxay ku noqotay filin waxayna u carartay hoygeeda iyadoo wajigeeda uu daboolay murugo iyo walbahaar ma aqaan meel aan ka fikiray xataa ma aqoonin anoo yaabana guriga imaaday waa naxay maalinka dhan cunto ma cunin biyo xataa ma cabin ilaa habeenkii kadib ninkii waa wada joognay casarkii wuu imaaday adi maqribadii meelahaas ahayd lama hadlin shibaa ka dhahay anna waxa islaha u sheegin arrintan waa ka aamusnaa ilaa habeenkii waa ka qarinay kadib adii maxaa dhihi jiray waxaa rabo qof la wadaago waxa isdhahay familka u sheeg kadana way ila noqon weysay maxaa dhihi jiray waa fikri hataa xeer waxa ku gaaray inaa istilo saqdhaxe habeenkii ninkeeda ayaa su'aal weydiiyay oo ahayd sababta ay la seexan laadahay waxay garan waysay waxa ay ugu jawaabto afkii ayaa jubuqda gabay habeenkii dhan saa u fikiray ilaa habeenkii dhan urdu iga soo dhiciyay 7 saac markay ahayd museyga waa wada joognay wiilkii kadib wuu soo kacay wuu yaa wuxuu dhahay maxaa u seexan laaday cawada bas markaas waxaa dhahay waa ka aamusaday kadib haddana wuu ii sheegay maxaa yacni wuxuu i weydiiyay sababta aan la murugeysanahay maxaa dhacay ma familka dhankooda problem ka jira ayuu dhahay maya ku dhahay waa isxakamay waa u sheegay runta waxay taa u sheegay sidaas ay soo dhahay mana aqaan habaar ayuu aamusnaa markaas haddana jawaab xataa ma uusan ii celin wuu iska sii seexday asaga wixii waxaan arkay ninkii iga soo horkacay waaya waxa buu aadaa isdhahay gadaasheeda iska fiiri ma joogo waa soo baxay sitin ruuka asoo fadhiya u maaday kadib jikada galay shaxa u soo diyaari waa u keenay marka u keenay meesha shax ka cabila wuxuu dhahay soo fadhiiso arrin muhiim ah inaan kala hadlo maxaa la jiray igana raal noqo arrintan waa arrin aad iyo aad weyn maxaa waaya daan waxa islaha waan ku fura inuu dhaho ka sugaa maadaama arrintaas u sheegay furina ka sugaa markaas wuxuu igu dhahay arrintan maanta adigu ku haysto sababteeda aniga lahaa man islahayn adiga ayuu kugu dhacaya waa ogaa intaan ku guursan ka hore ayaa u qabay maxaa la dhihi jiray midis ugu bas aniga waa ku isla markaas xaande ani ma igu ciyaarsinaysaa misaniyada ay gudisaysaa ma yarun aan ka hadlaya wuu ii dhaartay aniga marka adduunka ila wareegto waxa sameeyaa aqooni waayay anoo waxa is arkay asaga ku booday oo kalarkiisa qabtay haddana darbaxsha ugu dawmariyay markii aan darbaxshada ku dhuftay hal mar ayuu iska qabtay oo idaba tuuray
soo derbiga madax ku diray waana suuxay saacadooyin kadib ayaan soo kacay anoo miir tawalsan markaa soo kacay wax ila jooga oo malaa keligay ayaan marka ay sheekadaas halkaas marayso ayaan istaagay anigoo u dul qaadan la murugada ka muuqatay Farxiya loo sheeg bal ninka ehelkiisa iyo qarabadiisa bal aawe wallahi ninka familkiisa waan aqaanaa maxaa jiray markuu iga tagay oo maxaa jiray sidoo iga tagay familkiisa ay familkayga la xiriireen markii arinta familkayga uu sheegay isqabqabsi dheer familka waxay dheen anaga xataa siday gabadhan ooga mooganeed oo kale ayaa ooga mooganeen arinta saxo kamaanhiin asagana had ilaa hadda taameel kuma sheegno soo kadib ayaga ayaa waxay bixiyeen kii raali galin iyo sabeen xir Farxiya ayaa hadda rafaad kula joogtaa gabar kale ee Soomaaliyeed ninkiina wax war ah kama hayso wallahi ma aqaan maalinkaas ayaa igu dambeysay kadibna dib dambe igu soo laaban telefoonkiisa markaa waxana ma wada familkaada hooyada iyo aabaha oo mashmuul sheegtay waan u sheegay waa la wadaagay ayaga runtii aad iyo aad ay u naxeen kadib waxay sameeyaan ilaa hadda ayaga ma aqaanaan anigana halkayga ayaan iska sii joogaa waxaan ku sugnaa wallahi walwal iyo walbahaar maxaa la dhihi jiray fikir aad u badan stress inkastoo hadda wax tagay aysan tiigsimaad lahayn dhibaatada igu dhacdana aansan waxba laga qaban karin hadda waxaa la joogaa gabar aan qaraabanahay oo Nairobi degan ayada ayaa gurigeeda igu hayso ayada la joogaa عبد الرحمن خليف RTN Nairobi